marka labaad waxa weeyaan midka dhaqaalaha waad ogtiin macashadu meesha ay sii marayso haddaynaan annagu inta marada dhexda ku xiranno adkaysano aynaan tabcina weligaan ka bixi mayno guni iyo gacan horsi baan u dhammaanaynaa ma guni iyo gacan horsi baan ku jiri karnaa insaanku sharaf buu leeyahay karaamuu leeyahay oo maanu inta ilaaheen cuskano iyo nafteenna maynu qof iyo yaanba inta qaato waa ka halka aduu ka baxaya maanu wax ku abuurno bal qof walba gurigiisa muu ku abuur geed lima inuu bixiyeen kala arkay oo geed babaaya ku abuura oo geed cambaa ku abuura waa baxaya qof gurigiisa uusan baxayn ma jirto hortiisa waxaan kaga bixi karnaa inaanu u jeedsano tacab kii badgalaa ha galo kii biri galaa beer ha ka doonto kii xoolo haysta ha tabcado ha xanaanaysto kii wax kaleeto oo qiimo le qabanaya ha qabto qof gaajaysano gob ma aha gun wey wixii la rabo iyo dantii la rabaa laga samaystaa oo maxaanu nagu kalifaya inaanu saas u gurowno dadkeenna inaan jahayna doonaya innagaa la rabaa inaan jahayno tan saddexaad waa dagaalka shacbigeenna lagu abuuray in maanta 16 sano kadib oo dulgii foosh xuma aynu ka soo baxnay dad ahaan iyo qaran ahaanba haddana la doonaya dib in loogu celiyo qabiilkii xuma oo isticmaar ka dambeeyo waa isticmaarka xabashida waxaa loo baahan yahay ummadeenna inaynu hanuunino oo culimadiinaan waaweyno weliba aad marada dhexda ugu xirataan ayaa loo baahan yahay waxaa loo baahan yahay inay ku tasaasiyaan oo kor uga hadlaan oo si geesinima uga hadlaan inay ummadooda toosiyaan oo ka hanuuniyaan dariiqa jahannamka ah dariiqa mustaqilkaan ay ku leexiyaan wasalaamu calaykum waraxmatullah weligeed ku deeqi mayso waxaad adigu gacantaada ku qabsato iyo maskaxdaada iyo taladaada iyo garashadaada waxaad ku qabsatay wax ku deeqi kara intaasaa jira oo uu la jiro iimaan iyo kalsooni